taageerayaasha xisbiga wadani ee degmada Sheekh ayaa habeennimadii xalay hoteelka Xaashi Baro waxay munaasabad soo dhaweyn ugu sameeyeen gudoomiyihii hore degmada Sheekh ee xisbiga kulmiye Axmed Naasir Xuseen oo dhawaan xilkaasi iska casilay. Munaasabadan oo ahayd mid si heer loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani, siyaasiyiin, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Sheekh, maamulka xisbiga ee degmadaasi iyo sidoo kale mudan iyo marti sharaf kala duwan. waxaana ugu horreyntiba halkaasi laga jeediyay hadallo kala duwan oo lagu soo dhaweynayo gudoomiye hore Axmed Naasir. waxa uu haray waa 22 habeen madaxweynahaynu wadnaa waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. waxa aan leeyahay xisbigii loola jiray Qurmiye wuxuu isu bedelay mucaarid. waxa uu xagxaganayaa calamadii wadani oo habeen walba laga taagnaanahay. wadani waxa leeyahay guul, waxa leeyahay kuwa cashuurta dawladda ku bixinaya, caruurta yaryar siinaya ee laga soo qaadayo aanadayda islaamta hooyada ee tamaandada ku haysta suuqa. waxa leeyahay warkadaaya waa ummadda wax u qabta uu degay waayo mishiinkiisii siyaasadda ee Axmed Naasir ayaa caawa halkaynala fadhiya. Axmed Naasir waxa weeye waa joogkii siyaasadda. annagu haddii aanu nahay garabkii dhalinyarta aad baan ugu faraxsanahay inuu nala shaqeeyo. Axmed socodkeenu waa halkii aynu soconay. annagu waxa bari bay udub nala duntay, dabeedna waa arag baanu ka nahay. maanta waxa dhacday xawaal taalaabaan u samaynay udub markay duntay saa noqotay. maantana taaladii labaad tii kulmiyaan xabaashu qodno deelkun baynu ku ridaynaa maalinta ay 13 November gaadhay. kana waxaan leeyahay walaalkii Axmed Naasir Xuseen Cigaal in badan baynu walaal iska soo horjeednay. maanta waan ku faraxsanahay inaan isku meel ka duulayno, inaan isku raynahay. walaal waxaan leeyahay soo dhawow. sabab xumaad bulsho sida ku nool sihir barra ku dhacay shilay waxa aan shakhsiisa karin. sababkii horena kaanu saarnay oo yirisan dad kalu saarin oo uu saashaday saadirka bariyaad Raxmaan ka saar. dhammaanteen waxa ku dhiyay ololaha si weyn oo nugu miisaan aan uga qayb qaadano. waan mahad celinayaa dhammaan ka soo qayb galayaasha. Axmed Naasirna waxa la ku soo dhaweeyay xisbiga ay qof waliba qofka ku xiga ee xisbiga kale uu codeynaya waa inuu soo tashiliyaa. ay jaarka tahay haday xigi tahay iyo haday xigaaltay qof waliba qofka kugu toosanaystaado meel kale uu jeexjeera waa inaad tashilisaa. gudoomiye hore xisbiga kulmiye oo soo wareegay waxaan leenahay soo dhawow. aad baad ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku faransiiyay inaad maanta ka qayb qaadato isbedelka socda oo ka soo guurto xisbiga kulmiye oo geedi laga noqday dalka mideeniya ninka dowladda disiya mideeniya waana Cabdiraxmaan Cirro. gudoomiye hore ee kulmiye maantana uu ka tirsan yahay xisbiga wadani. halgankii himiladuba halku maanta marayaan xisbiga kaliya taa maxay toolay isku haynta dalka iyo dadkaba inuu wadani yahay. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Axmed Naasir Xuseen gudoomiye hore xisbiga kulmiye ee degmada Sheekh. waxaanu si weyn ugu mahadnaqay taageerayaasha xisbiga wadani ee munaasabadani u sameeyay, isagoo sidoo kalena sheegay inuu si weyn isku garab taagi doono xisbiga wadani. oo mahad ballaaran oo aanan soo koobi karin ugu mahadnaqayaa habaryarahay eedooyinkay. aad baad u mahadsantihiin. ma gudi karayaa abaalkaad ii gasheen, waanan idinka gudoomay. walaaladaydan iska soo horjeedna waxaan leenahay kaarka aad maanta xogaysaan idiin shaqayn maayo. wallahi inaanu idiin shaqaynayn. amba dhaha dhiiguma biyaa amba ereye kaleba dhaha. haddaan dhiiguma dheecaanba dhiigu waa biyo. annagu haddaan xisbiga wadani isbedel doolka nahay waxaanu ka shaqaynaynaa walaalaynta dadka kale dheerta dadka ku shaqayn mayno. da'ayga iyo mowqifkayga iyo raganimadayda baan ku soo raacay xisbiga wadani. cid igu yeedhay ma jirto. lacagtii laydinka ururiyey ee gabadhida dowladda hoose lagu soo iibiyey in campaign lagu galay. campaign baa lagu galay 20 cashaa ku waaray. halka saaxiibkii wuxuu xogayahan diyaar u ahay macalmaayirkan ku raacinaynaa. maayirna waa la saarayaa tan.
waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani xildhibaan cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf siyaasi ramaac cali hayste xildhibaan caydiid khayre iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale waxaanay si mug iyo miisaanle u soo dhoweeyeen gudoomiye hore axmed naasir aniga axmed naasir haddaanan maanta iska soo horjeesan waa ilaahay mahadii waa laacibka qurey haysteen waa labarbayka qurey haysteen ay kubaddu soo laadi karaayeen waxay ku bedelaan goosaa geliyaan ma hayaan marka waxaan leeyahay maanta waxay u taagannahay guul dee seediga muuse biixi dee haraal sideenta kuu dhisay iminkana seediga cabdiraxmaan maan dhisaya maanta kulmiye waxyaabaha ugu badan ee lagaga yaacayaa waa bilaa karaamo ummadii kulmiye maanta iyadaa u dhaqmaysaa sidii weliba mucaaradi taal daran calan ay la yaacaan xaflad ay sidhaahdaan arbusha dhagaxay tuuraan intuba xusbulxaakim laguma aqoonin 9,000 kun oo cod baa yaalla waa inaynu hellaa qolkiiba 80 gobolka saaxil waa inay u codeeyaan cabdiraxmaan madii sheekh baynu joognaa 2017 inteeda halkaas oo fadhida inta badan aniga iyo ramaax iyo axmed naasir iyo caydiid iyo maxamed sahal laftiisa waxaanu ahayn dadkii muuse biixi halkan codka uga qaaday markii horena annagaa idiin keennay iminkana annagaa idinle cod ha siinina hal cod ha siinina ana qoodhin idinku maxaa loo qabtay 7 sanadood sheekh maxaa loo qabtay bini aadamku waa inay xisaabtamaan xisbiga kulmiye maalin horaan sheegay anigu waxaan idhi waa dee kolley inta waaweyn unbaa daawatee waa markabkii tigtaaniga degayay axmed waxaan ugu mahadnaqayaa inaanu kula degin aad goorroon ka soo booday ilaahayna kaa soo badbaadiyey kulmiye sidii uu inoo sheegay madaxweynaha 20 maalmood u hadheen mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cigaal ciro sidii uu inoo sheegay lacag bay soo daabaceen dadka damiirkooda lama iibsan karo waxaan leeyahay kulmiye ka cunoo ka codeeya waxaan iminka aaminsanay reer kulmiye inay waalayihiin dhakhtarka maskaxdaynu geenaynaa berbera waynu soo baaraynaa labada guri ee sheekhay isku xiga ninka u kala abtirinaya caqli kuma jiro waxay doonayaan dadka reer Soomaaliland caqligooda inay iibsadaan axmed naasir waa geesi anaa qiraya cabdirasaaq qaasin jaamaca telefishinka saab berbera